بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة لمدي مثلا مثل ما يقول أدوك جوتين وحنا لله سكسون قدوانا ونكسر. أوكي أنا وايم ماضي إذن كان رجعنا إن إسكيب دون إن شاء الله ما شاء الله الحمد لله وحنا لله هاي ومد الصوماليات ميلو بجوتين وحنا لله عيد ونكسر عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. الحمد لله عيد عرف إلهي سمو ونوك يعني إن شاء الله وحنا جينا إلى نكفى إذا سنو بريتو ومالين عيد ومالين فرحات محاربنا إن عندما شارنا فرحة عيد إن شاء الله waxaan rajeynaa dhamaantiin inaad wada caafimaad qabtiin aad u damaashaada doontiin berito maalinta ciid al-adha waa nasiib ayaan leenahay laba ciid ayaan beri ciideena labada ciid maxay tahay ciid waa mid salaad ciid waa mid ciid al-adha midna waa ciid jimcaha alxamdulillah taasna dadkii nasiib leh ayaa soo gaaro ilaahay ayaa soo waafajiyay ilaahay ayaa midaasna mahad iskale okay mid kale idin wada maxay tahay si ciwaanka ku soo aragteen waxaan idin wada waxay tahay dayaxda nuursha iyo qadarkeeyo micnaha dagaal oo xogaa siyaasi oo barnaamij kale cusub ay bikeeneen labadood anaga meena waa la rabaa qof korto waxa fiican marka hor u socod uu leeyahay ayaa fiican hor socod aad dib aadan lahayn hor socodkaaga waxa waay hadii aad hor socod aadan lahayn waa dib okay yaa khaldan fiiri qadarkeeyo iyo dayaxdal nooshe qadarkeeyo adiga isbuuc koor ayuu balmii wuxuu dhahay muqdisho ayaan ku qabanaa showgaas wuxuu noqonaa habeenkii dacawmo habeenka ku xigta habeenka labaad ayuu naqana ayuu dhahay showga $50 lagu galaa meeshii lagu dhigay wixii dhan wuu sheegay okay awdaha ku soo raasina shalay ahayd ma ogi asigan wuxuu sameeyay invitation asigan inuu show ku qabo doono muqdisho showgaas oo qof walba imaan doono maxuu ku imaan qofkaas lacag meeqo ku soo gala showgaas isku waqti way aadi muqdisho ka dhacay habeenka ciid waa ciid maan habeen dambe camal habeen dambe waay marka wuxuu dayax wuxuu dhahay asigana casho sharaf iyo show munaasabadooda aan qaabi umad Soomaaliyeed waxaan u sheegaa in showgaas ka soo wada qayb galaan showgaas meeqa lacag uu galay oo dayax dal noqshay waa free ayuu dhahay abu casho show wax dhan free ayaa laga dhigay imaa lagu dhahay aw qadarkeeyo sin $50 oo dhahay marka dib ma lahan $50 iska dhax qadarkeeyo mar walba horta aniga Soomaaliyeed inaan waxa fiican in la ixtiraamo isqadariyo waayo qadarintu way fiican tahay in la ixtiraamo way fiican tahay waayo wadankii hadda ayuu hor u socod bilaabaya wadankii hadda ayuu soo kabsanaya ay mar walba wadankii hadda soo kabsatay tiyaatarkiina hadda la dayactiray hadda la sameeyay fanaaniin badan ayaa la soo magacaabay oo kamid ah ugu horeeyaan qadarkeeyo iyo dayaxdal nooshe labadii maanta indhaha muqdisho ahaayeen umad Soomaaliyeed dhan indho u ahaayeen hadii maanta labadooda oo qaabdardan sameeyay oo siyaasad kale ama waxyaabo kale xun oo sameeyaan labadooda ka waran umad Soomaaliyeed zaid u nijabayaan alaashan waa labada qof maanta oo lisdahay fanka Soomaaliyeed dib ayuu soo noqday waxaana dib muqdisho uu soo cusbeenaysi abo laga yaabaa inuu dib dambe u soo noqdo fankii hore Soomaalida ilaa Soomaali waa naqaana hore fanka waxay ku ahaayeen waxaan dhabantina wada ognahay balse laakiin waxaa lisdahay fankii qadarkeeyo iyo dayaxdal nooshe maanta wax kale oo labadaas la mid ah ma jiro wixii kale waa booc meel iska dhig laakiin xaqiiqatan markii labada qof maanta muqdisho la dhahay labada qof muqdisho soo baxeen lahay waa ay xamar ahaan dadka xamar joogan hasta ku kala ma fanaaniinta xamar jooga waa aygiina haday qaabdaradan ay sameeyaan oo umad Soomaaliyeed oo nijibiyaan labadii qof lisdahay maanta waxay naqanayaan laba qof oo fanki Soomaali dib u soo nooleeyo masraxii wixii dhan oo umad Soomaali hamigooda ah iyo fikradooda hore dhan inuu dib u soo celiyaan labada qof oo maanta oo la fiirsana waa Allah labadii qof hadii sidaan ay sameeyeen marka Soomaali Ilaahay oo maqan awal Ilaahay iska haysan mo Ilaahay oo maqan qof bini aadam uu ku tishaneen badalin Rabbi saarnay aygan saas haday sameeyeen والله إذا كان يترى wax orto wanaag orto wax ka fiican ma in la isqadir la shanfo wax ka fiican ma laha ana hogaami ana ka hormara ana ku wax fiican ma laha marba waxa fiican horumarkaaga inaa ku fikirtid oo ku mashquulshid laakiin qof kale tada ku mashquulshid dhibaato leedahay marba waxa ku mashquulshaa waxay tahay horumarkaaga iyo talentigaaga iyo fankaaga iyo wixii adi hami iyo khibrad aad u leedahay gabaran hadii qof kale aad ku mashquulshid qof kale oo asi walaalkaaga waaye isku dalatihin wadankii maanta waa wadan iska burbursan waa wadan dib kabasho had sameeyay waa wadan fankiisa wixii isticmaal hor u baabay oo hadda u baahan in dib u kabasho in loo sameeyo waa wadan u baahan wixii dhan way cusub yihiin nolosha dhanabo nolol cusub laga dhigay balse laakiin hadii qaabdaradan aasmaysan wallahi waa dib qadarkeeyo $50 dhahay aw dayaxdal nooshe wuxuu dhahay free show ku imaado dhahay wallahi qofkii aqli horta wax waa dareema mafaantiin aniga Soomaaliyeed waxa waay
bee sababta markii loo eebo $50 horta uu iska badnaa maanta nin show $50 ku galay xamar ma joogo horta hadii been sheegayni laakiinse waba dhahaybo laba soo qaad ninkan casho free iyo show buu isku sii dhahaybo marka show free la iska aadamo $50 ya awood إلى لبضوض برنامج كله فيلم كله تبلان أيقله أو كوبنات علشان والفكر وفهم وين ومد صومالي ده هرمود تهين إنه تهين إيه وإحنا نكسر أوليون كده سماي وكين وين قلبي قول ما هو محاسمين هنا مرك وحال ده هنا مرك لبضوض ولا وقفوا عليه صومالي هلو صدقي وحكى الله ما جو إلى آخر قول إجراءات كذا بسان كانت مرك أنا سيدنا بورتا دام صومالنا أنا ورتا مروا بحافي عن بتأساجين إنه كده سنو dadka diriskeen waxay sameeyaan inaan ku daysano ma ahan in anaga aan isku mashquulno waayo anaga hadaan isku mashquulno wax natiijo horumar aan keenin ma lahan waayo burburka nolosheen islaan in wax walba wax keena waxay tahay isku mashquulid adduunka sidii mamnuuc iyo ma wajirabo in isku mashquulin ma ahan wax fiican waxa fiican in walba wixiisi asay inuu gaar ahaada in noloshiisa iyo khibradiisa marka waxaan leenahay Soomaaliya qalbigiina Ilaahay idin mideeyo maanta mid labada ahaa lahay horumar la tiigsan lahay balse laakiin wax oo horumar la'aanta keenaya waxay tahay mid ahaansho mid dhamaanteen mid minihni qof walbo go'aan uu qaataa qof walbo noloshiisa go'aan ka qaataa qof walbo wuxuu rabo sameeyaa ilaa nin walbo tiisoo fiirsamahayna dabbo inbati shacabka umad Soomaali cid fiiris ma lahan wadarkeen waa fanaan ahaan la yaqaan bayxdan hada gardar ahaan ma kii laho idinkan wax baa ogtihiin waan dareemi kartaa dad aqal Ilaahay idinkii marka raay ahaan ambo معناها أديكو رأيك هاتلاي يا قدرن إيكولو تاهي وحاومهنا إنه بيحضرنو شو خلديني واي نكا فنان واي شو سميسونو وقتي أو معين وصبيست هذا محل غيره وقتي جي أس أصبيست حتى معه وقتك حتى هذاك اللي فريم إلهو حتى ديرتي بدك أقلي سأروري حتى ده ديرت لكيسة نكا وقتي ما عاود إن أديك أمواد وحاسب مع حم إشرف حمو واي خاصة صومالي وطاي ما أنت لو دين أسرع 65 ومن صومالي لهيسو ده ضلوا شيء خذ كيو oo kuwi fanka uu fiican ay ahaayeen ama isqabsanay day maqla walaahi wax wanaagsan ma horto waa zaid waa nijab xun marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan iswaansan doono oo waxyaabahan amal aan ka hortagi doono ma aha wax fiican insha Allah Soomaaliya waxyaabahan amal aan ka digtoonaan mar walba waxa fiican in wixii wanaagsan aan u tilaab qaadno